بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada aan jeclahay oo ku soo dhawaada muuqaalka xiga ee hanaan English officials. waa saaxiibkiin aadkii idin jecel Maxamed Umar Ali Maxamed Arkey oo aad aalabo kaga barateen in idin soo gudbiyo muuqaal xiiso badan kuwa oo xiriir la leh luqadda anfaca badan ee Englishka. maantana waxaynu dul istaagi doonaa qaybtiisii phrasal verbska qaybtiisii saddexaad insha Allah. ka bogasho wacan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe deh kadibna gambalelka furo. mahadsanid. Number 1, crossover. Crossover waxaa la yidhaahdaa dhimasho. Crossover dhimasho. She is crossing over. waxay u dhibanaysaa iyadu for the sake of my life, jecelkayga dartiisa. Number 2, clear away. Clear away كتيد باليرادة. Please fadlan clear away ka tag in front of me hortida. Because maxaa I hate you waan ku necbahay adigu. Number 3, chill out. Chill out waxaa la yidhaahdaa nasiino ama isdeji markaa dhayso ogeeda. Isdejin baa la yidhaahdaa. Chill out isdejin. Chill out isdeji, otherwise haddii kale I will make you run. waxaan kaa cararsiin doonaa from your shadow hooskaaga. Number 4, clean up. waxaa la yidhaahdaa quruxlow. Clean up quruxlow. I can talk about kama hadli karayo his appearance muuqaalkiisa. Because maxaa yeelay he was very clean up. aad buu u qurux badnaa isaga. He was very clean up. aad buu u qurux badnaa. The last number 5, chew out baa la yidhaahdaa. Chew out canaanasho weeya. The preceptor macalinku was chewing the students out. ardaygu wuxuu u canaananayay badle si xun ayuu canaananayay. waxaan filayaa inaad ka bogateen cashirkaasi aadna ka hesheen insha Allah. haddii aad ka hesho fadlan cashirku like saasayno usoo badino muuqaalo ku saabsan cashiradan oo kale aad ku xiisaha badan. sidoo kalena subscribe share u dheh asxaabtaada si iyaguna ay ugu sii faa'iideystaan. waa anigoo ah saaxiibkiin Maxamed Umar Ali Maxamed Arkey. inta aynu muuqaalka xiga ka kulmin doona waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaan ku rajayn doonaa guul weligaaga. waxaan ku leeyahay guuleyso meel walba aad ku sugan tahay. mahadsanid.